daawadayaal ii jeedayaal ii daymoodayaal ii xiisayaal anna u xiisayaal taageerayaal barnaamijkan ku taxnaadayaal saaxiibayaal aboowayaal abaayayaal aabbayaal hooyayaal ayeeyayaal abti adeer awood jamlayaal madax ilaa majo iminka iyo haatana waxaad ku soo dhawaatiin iminka markaan idhahay aniga mani caahoy hadda le laga wadaa iminka waxaa la waaya hadda oo la sharxi haddana waxaad ku soo dhawaataan hee warkii oo keliyo maanya daameno warkii oo kalaamudda eh ku soo dhawaada ardayda suudaan wax ku soo baratay oo guddoomiyeyaashii degmooyinkii hore ka muteystay inay ayaga guddoomiye ka noqdaan gobolka banaadir waa naqdeen waa laga dhigay guddoomiyeyaashii hore ayagana gacmaha isma saarin ma seexanin ma niyad jabin niyaddooda waa dhisan tahay boorsooyinkooda ay xirxirteen alaabtooday ku shibteen saf dheeray galeen wixii looga qaadi oo kuwaan la soo bari oy ka badiyaan ay ayagana diyaar u yihiin inay suudaan tagaan ay ka soo bartaan hadhow haddana kuwaan haddii lagu kor imaado ii kana saan camale loogu qaadaa ninba kolkiisa le kawaawa beerey loo tumaa waddanka dadka dhan muwaadin waayo waa wada leeyihiin ninkii shalay talada fuuli maanta haddii la yidhaahdo walaalow haye ninkan walaalkaagaa fuulayo niyad saafi ayaa loo baahan yahay ilaan waxaa loo wada shaqaynayo waa shacabka soomaaliyeed ma ahan qofka asiga ma shaqaysanaynin warkaasi arrin ku saabsan waxaa inoo haayo waryaheena da'da yar waa kee waa faarax cali wehliye faaraxo adna ama suudaan u socotaay lamadaan beri muku arkooye ku soo dhawaaw ardayda suudaan wax ka soo baratay oo jireen qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir oo xilka laga qaaday oo qorsheynaya inay suudaan waxbarasho u aadaan si ay u lumin fursadaha qaaliga ah ee soo socda ee gobolka banaadir guddoomiyihii hore ee degmada Daynile oo xilka laga qaaday muxuu ka yiri xilka qaadistiisa siyaasaddu ma noqoto group iyo xisbi dalna kuma dhismo oo ku burburaa waxaan leeyahay ha laga daayo gruubka iyo xisbiga ha laga daayo haddii la rabo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed inuu hormaro ha laga daayo xamar ha laga daayo gruubka iyo xisbiga ha laga daayo waxaad moodaa baashu inaysan ahayn Soomaalinimo inaysan jirin oo gruub iyo xisbi ay tahay waxaan dhihi marka gruub ma dhaqo dal ma dhaqo dadna ma dhaqo guddoomiyaha gobolka banaadir xasan maxamed xuseen muungab oo isaga laftiisa ka mid ah ardayda wax ku soo baratay dalka suudaan ayaa xilka qaadista guddoomiyaasha degmooyinka lagu sameeyay sidan ku micneeyay annaga waxaan rabnaa insha allahu tacaala 2016 intii aan la gaarin waad ogtihiin dalka waxaa la rabaa in doorashooyin guud laga hirgeliyo 2016 magaalada muqdisho lafteeda waqtigaas ka hor ayaan rabnaa inuu la bedelo maamul la soo doortay kadib markuu baarlamaanka u baasgareeyo maqaamka gaarka ah ee caasimaddu leedahay sidaas daraaddeed waxaa laga maarmaan in la helo rag dhiirigeliyo hawshaas broseskaas la doonayo magaaladan in dimuqraadiyeyn ay ka dhacdo oo doorasho dawladii hoose ay ka dhacdo oo golayaashii deegaanka la soo doorto oo duqi magaalada muqdisho golo deegaan ay doortaan intaan la gaarin 2016 ayaan doonaynaa broseskaas arrintaasna waxaa laga qaybgeli doonaa bulshada degmooyinka 16 degmo ee magaalada muqdisho iyadoo guddoomiyaal badan oo ka talin jiray degmooyinka muqdisho ay xilkoodii waayeen isla markaana daaqada ka bixiyeen arday reer suudaan ah ayaa wali waxa wadnaha farta ku haya guddoomiyaal kale oo xilkoodii haya isla markaana u xusul duubaya inay xajistaan booskooda faarax cali wehliye
faaliyaha qaranka Universal TV Muqdisho. صبرت واستنيت كتير أتمنى صبرت واستنيت كتير أتمنى أمني نفسي وأقول بكرة الجنة ومن بعيد ياما وياما سألنا ومن قلبي بدعيك لا تخجلي يا سمحة قولي واستعجلي لا تخجلي يا سمحة قولي واستعجلي عطشتي قلبي كل يوم تجملي اديني كلمة وسامحيني وطولي عشر سنة خلاص كبرت إليك 19 سنة عمر الزهور عمر الغرام عمر المنى عمر الزهور عمر الغرام عمر المنى أتمنى جنة حبنا تبقى أمين يا قلبي أنا لا تخجلي يا سمحة قولي واستعجلي لا تخجلي يا سمحة قولي واستعجلي عطشتي قلبي كل يوم تجملي